kulan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qaabkii uu u dhacay ansixinta wasiirada uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xamza qaar kamid ah xildhibaanada golaha shacabka oo fowdo ka sameeyay inta ay socotay ansixinta iyo sidoo kale guud ahaanba waxyaabihii ka dhacay golaha ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii aanu ku bilowno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Barre ayaa golaha shacabka federaalka Soomaaliya waxa uu ka dalbaday in ay meel mariyaan golaha wasiirada ee dhawaan uu soo magacaabay inkastoo labadii maalmood ee ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka soconayeen kulamo ay wadaan qaar kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan kuwa koonfur galbeed ee ku matala baarlamaanka kuwaas oo doonayay in gabi ahaanba la hor istaago golaha wasiirada isla markaana kuwa kale la soo magacaabo balse 229 xildhibaan ayaa codka kalsoonida waxa ay siiyeen wasiirada uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xamza iyadoo 7 kamidna ay diiday mid kamidna uu ka aamusay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ugu horeyn waxa uu dalbaday in cod gacan taaga la geliyo si loo ogaado cidda codka siisay iyo cidda aan siin intaba xukuumadda magacaaban iyo barnaamijkeedan horyaala waxaad ogtihiin baarlamaanka mase golaha shacabka sharci kastoo la keeno markii laga reebo sharci kastoo la keeno baarlamaanka mase golaha shacabka waxay awood u leeyihiin inay wax ku darsadaan wax ka dhimaan laakiin markii laga reebo barnaamijka xukuumadda magacaaban keensato هذا الهلمان كم جرو أنت عن حقلين هرت وحن ربا أجنتها إن أنسحين ومرك وريدكم ما حدثن رالي هذا قدونك وحقول فريستا أرتو وركي قد نجيستا أو فريستا إلا بقى أنا شرفت الله إلا بقى أنا شرفت الله وحدوه كان سميسين رؤسات يا الدستور كذلك هذوه كان سميسين قضب كالتضبات وحدوه كان سميسين رؤسات يا الدستور كذلك هذوه كان سميسين حتى بقى إلا بقى حبلوره dadka anshaxa ku dheelayo nidaamka waa u sheeg mooshanka sharci ma aha lama akhrinayo waxba kama jiraan إلا أنا شرفت النتيجة أن كل واقعنا هلا نجيستو كورم كوا لب بقول واحد أكتين لب بقول صدن إيو تضبه اللبان واحد ديدي تضبه اللبان واحد كاموسي هل واحد أقول هذا لب بقول لباتن إستغال اللبان وأنا أنصح حكومة wali wararkayaga ayaa daawanaysaan markaana xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee codka kalsoonida siiyay ayaa waxay halkaasi ka muujiyeen intii codka siisay oo ahaa 229 dareenkooda ku aadan sida ay u taageersan yihiin golaha wasiirada ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xamza iyadoo la arkay muuqaalo la soo duubay iyagoo miisaska garaacaya isla markaana sacbinaya taas oo ay u muuqatay inay taageerayaan ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda sare Soomaaliya ayaa waxa uu dhaariyay wasiirada maanta codka kalsoonida ka helay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya shirgudoonka golaha shacabka ra'iisul wasaaraha xukuumadda dhammaan xubnaha golaha shacabka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول أنا واجبات كدستورية وجوهي قلب كبقول يافر
ee dastuurka ku-meelgaadhka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan u dhaarin doonaa xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hadda la ansixiyey sida uu qabo qodobka afraad ee dastuurka wasiiradu ha saaraan kitaabka gacanta midig kadibna ha iga daba idhaahdaan dhaartaan akhriyi doono insha allah waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrayana dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wabilaahi towfiiq alle xilka ha idin fududeeyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بدونك قولها شعبك حلبانا الشرفت له لما أنت كسو قيب قشي وعليكم السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان إن أن هل كان مهد بلاران وسو جيديو guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaad dastuuriya oo qaran waxaa sharaf weyn runtii ah in aan maanta idiin soo gudbiyo magacyada iyo muuqaalka xukuumadda cusub ee dan qaran waxaa ilaahay mahadiisa oon aad ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansixiseen ayadii iyo barnaamijkeeda ay fulin doonto haddii ilaah yidhaahdo waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doonno sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daaraan dhacaya sidii aan amniga wax uga qaban lahayn iyo sidii aan ku fulin lahayn brogaraamkaas ballaaran ee idin hor yaalla innaga oo wada soconna wada shaqayna is-aaminsan isla xisaabtamaynaa si dastuurka waafaqsan ayaynu uga gudbi karnaa dhammaan caqabadaha aynu hor taagan oo dhan waxaan rabaa mar kale inaan idin mahad celiyo sida ballaaran ee runtii aad ansixinta noo siiseen waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaanno inaad nala xisaabtantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar kale assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii maanta golaha shacabka oo ahaa warka ugu xiisaha badan ee soomaalida marka la fiiriyo mar walbana waxaan idiin soo gudbin doonaa war walba oo aan isleenahay dadka idin daawanaya way xiiso gelin karaan kan xigeenteenu ku kulmeyno dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo